مختار محمد علي في كلمة الصوت دوينتي سبب الدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلاة ربها جود قادتك قرينتا أو ما أنت الله كلا دقي waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud cali xasan maxamed oo runtii si fiican aan u soo wada shaqaynay nin akhlaaqiyaadkiisuna dhisan yahay dhaqan wanaagsanna aan runtii ku aqaano waana u ducaynayaa meeshuu tagaba in ilaahay ku horumariyo xilkuna waa iska meerto oo dadku waa isdaba socdaan wasiirkeena hore waynu sii ducaynaynaa wasiirkeena cusubna waynu soo dhawaynaynaa hadduu la yidhaha iyo wasiiradeena cusub waa ogeydeen muddadii cali xasan maxamed inoo yimi halka ay maraysay waddada ceergaabo iyo waddooyinka kale ee ka baxa magaalooyinka caasimadaha muddada waxaan filaynaa waxqabadkiisii waxaa ku arki doontaan kolley meelo badan aad iyo aad ayaa halkaa wax weyn uga qabteen wasiirku waana ku ammaanan yahay intii uu joogay wasiirku waxa weeyaan shaqaalaha wasaaradda waxaa loo sameeyey hierarchical wixii la odhan jiray muxuu ahaa nidaamkii structurekii shaqaalaha wasaaradda howlaha guud guryeynta gaadiidka nin waliba wuxuu yaqaanay xilkiisa uu ku soo toosayo subax walba waxyaalahan aad iyo aad runtii wasiirka ugu sii ammaanayna waxay ahayd qof waliba wuxuu yaqaanay responsibility role and responsibility-ga uu leeyahay wasiirkii hore cali xasan maxamed inaan u mahadnaqo run ahaantii shaqadii ballaarnayd uu ka qabtay guud ahaan dalka gaar ahaan hay-adda waddooyinka haddaan nahay waxaa lagu xusuusan doonaa runtii mashruuca ceergaabo oo aan odhan karo wuxuu ka soo bilaabay meel aad iyo aad u beysiga oo aan odhan karo wuxuu qabtay shaqo la taaban karo maanta waddadu way isku xidhan tahay 248 kilomitir oo isku xidhan weeye maanta oo badhna daamur yahay badhna caratuul yahay waxaan odhan karaa xukuumadda hore iyo wasiir cali aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa wasiirka una ducaynayaa wasiirada cusub gaar ahaan wasiirkayaga cabdulaahi abukor waxaan ballan qaadaynaa insha allah hawshaa hore hirgashay runtii guusha aynu sheegaynaa waxay ku hirgashay xukuumadda doonisteedii iyo fankii loogu qoondeeyey in ay waddooyinka hirgalaan waxay kaloo ku hirgashay shaqaalaha oo aan odhan karo run ahaantii hadh iyo habeen way u taagnaayeen gaar ahaan waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa maxamuud daahir oo ah maareey ku-xigeenka oo mashruuca hadh iyo habeen mashruuca ceergaabo noogu weyn mashaariicdayada dul taagnaa waxaanu ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha inkastoo maareeyo uga dambayn doono in aanu si joogto ah oo sidii hore iyo si ka ballaaranba aanu ula shaqayn doono wasiirka cusub guud ahaan hadday tahay maxaan ku rahdaa wasiirka howlaha guud gaar ahaan wasiirkayaga cabdulaahi abukor sanadkaa dhammaanaya 2017 hay-adda waddooyinka waxaa khasnada dawladda u taalla lacag dhan 3 milyan iyo 47 kun oo dollar ayaa taalla khasnada dawladda khasnada markaan leeyahay waa lacag soo dhaaftay maaliyaddii way ka soo baxday xafiiska odhidka way soo martay xafiiska treasury-ga la yidhaahdo ama khasnada dawladda ayay taallaa insha allah lacagtaa waxaa ka howlgeli doonaa oo account-kayna loogu shubo ka howlgali doona wasiirka cusub anaguna la garab taaganna kharashka ku taagan hay-adduna waxa weeye lacag 2 milyan iyo 500 ah oy micnaheegu tahay hay-addu marka la kala gooyo miisaaniyadda khasnada u taalla iyo kharashkay gashay iyada ayaa leh lacag 500 kun oo wax ilaahay loogu mahadiyo wasaaraddoodana inay la qabin inay qor isku dhiib tahay ammaanada qaranku waxaan qabaa intii aanu joognay aniga iyo wasiirka iyo agaasimaha wasaaradda howlaha guud inay wax badan qabsoomeen
kolleyna qaran curdina baynu naho wax badan baa dhiman oo mar walba u baahan in la qabyo tiro wasaaradda howlaha guud oo imikana 2 wasaaradood ah runtii waa wasaarad halbowlo u ah qaranka shaqooyin badan oo muhiima u haysa oo saameynaya horumarka oo saameynaya nabadgelyada marka waxaan idin leeyahay khusuusan shaqaalahan aad loo amaanay anuguna aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waa ka sii badin doontaan isla markaa waxaan salaamayaa wasiirkii hore meesha joogay Cabdilaahi Abubakar iyo wasiirka xigeenkoodana waan ku soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kala wareejinta wasaaraddan loo qaybiyay labada ee aadka u ballaaran maantana bulshada ugu muuqatay inay tahay wasaarad ug iyo miisaan leh inta nagala soo qayb gashay waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad ayaan idin salaamayaa walaalayaal waa mahadsantihiin ka soo qaybgalka aan nagala soo qayb gasheen xil wareejintan ay kala wareegayaan wasiirkii hore iyo wasiirada labada waxaan leeyahay aad ayaad mahadsantihiin xilligaa aan la wareegay runtii markaad isbarbar dhigtay xilliga ay wasiiradanu hawsha la wareegeen 2 hawlood aad u kala duwan bay ku kala duwan yihiin mid waxa weeyaan waxay ahayd xilli teeram muddo kordhina oo teeramkii Ibraahimka ahaa ee dawladda la doortayna uu dhamaaday xilli muddo kordhinana ay noqotay xilli campaign oo la doorashana la galay marka waska garanaysaan dawlad gabagaba joogta campaign ku jirta muddo kordhin ku jirta hawsha aad qabataa waa hawl culays iyo xil iyo dadaal ay ku imanaysaa odayaashan wasiiradan cusub ee saaxiibada ah iyagu waxay la kulmeen dawlad imika dhalatay oo cusub oo maasha Allah la doortay oo dardarteeda qabto dadkii runtii dayn badan oo xagga wadooyinka baa runtii jiray iyo culays badan inkastoo wax qabadna jiray aan la dafiri karayn haddana lacag 5 milyan iyo wax yar oo diina baan la wariyay marka daynkiina maanta dawladinka maqlayo khasnada daalacaaba ugu jira haddaba iyadoo waqti koobanna ay jirtay waqtiguna koobna duruufahaana uu lahaa oo adkaa daynkaasina uu jiray maxaanu qabanaa waxaan runtii doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo xagga wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta structure-keeda wax badan baan ku soo kordhinay ama qaabkeeda dhisme ee wasaaradda xagga maamulka sida la socotaan mashruuca ugu weyn dalka ka socda waa mashruuca wadada Ceerigaabo duruuftiisuna taan idin sheegay bay ahayd hadda maanta oo aynu joogno waan xilkii wareejinayo 300 kilomitir oo wadada Ceerigaabo 300 kilomitir bay isku xidhan ilaa 120 kilomitir waa daamuro waa dhameystiran yahay inta kale 180 kale kilomitir waa shay arakaawo dhameystiran oo gaarigu markuu laamiga marayay markuu halkan maraya waa isku mid 120 iyo 130 kilomitir ku soconaysa waxa runtii waxaan kaloo doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo mas'uuliyiinta cusub ee imka la doortay xilka loo doortay dawarigii aanu isku xisbiga ahayna aanu wada shaqaynaynay ee aanu soo wada halganay waxa inkastoo imka aanan liiska ku jirin haddana waxaan ahay odayga dawladda la socda waxaa dhisan 10 kilomitir oo wadada nooca loo yaqaan Baby Roadska ama wadada lakabku saaran yahay xisbigii kulmiye iyo dawladda hore waxay nasiib u yeelatay inay dhisto 365 kilomitir oo noqonaysa 30% jidadka Soomaaliland maanta diyaarsan 60 sanadood ee hore Soomaaliland jirtay
waxaa la qabtay 700 Soomaaliya dawladda cusubna waxay qabatay 365 kilomitir bay qabatay annaguna waxaan rajeynayaa halbeegaas ayaanu hor yaalla oo aan ku khasbannahay inaanu ka qaadano insha Allah haddii la ka dhigo oo horumarka xisbigii hore iyo dawladdeeda hore ay gaarsiisay inaan si laba laabno ayaanu rajeynaynaa iyo balaankii xisbiga kulmiye uu sameeyay dalka horumarkiisa lagu kasban lahaa labadayna ku wadno shaqaalaha wasaaradda wixii ka soo hara gaadiidka iyo wadooyinka waxaan ugu ballan qaadayaa si miyir qabta oo wanaagsan oo caqliga gasha oo shaqaalaha waqtigu siduu uu yahay iyo baahidooda iyo waxa jira waa loo yahay sida Soomaaliland tahay waa loo yahay shaqaaluhu wuxuu ku sugan yahay waa loo yahay amount-ka ay qaataan aan ku filayn waa loo yahay nolosha waa loo yahay in hantida qaranka iyo